maalmaha ka mid ah anoo xafiiskayga joogo ayaa waxa ii yimid nin saaxiibkay ah Cabdiraxmaan Xaashi Faarax liiraado oo ka mid ah agaasimayaasha wasaaradda oo hadda safar ku maqan waxaan aqrinayay enlightenment-iga Europe waxay soo martay waqti oo black maxaa la dhihi jiray muxuu ahaa age oo ay ka dansanid Europe oo dhan aqoon ahaan iyo meel walba markaas wuxuu yiri abshiro Europe dansanaanteeda maxaad ka rabtaa inaan leenahay ma la socodid miya Islamic Golden Age ama al-casr al-dahawi fi al-Islam al-casr al-dahawi fi al-Islam hadalkii saaxiibkay uu dhahay aad buu ii taabtay xaafadan markaan ku laabtay ayaan internetka galay marka ugu horeyso Islamic Golden Age oo Islamic hal abuuradii islaamka aan geliyay waxa ii soo baxday tobanka muslim adduunka wax ka bedeshay waxa kamid ah al-Khawarizmi waxa kamid ah Ibn Sina waxa kamid ah Ibn Haytham al-Jasari az-Zahrawi Ibn Khaldun cilmi walbo adduunkan yaalo sociology hadhihin caafimaad hadhihin cilmu science hadhihin qaybihiisa kala duwan cilmu al-adab oo artiska ah qayb walbo kamid ah muslimiinta door bay ku lahaayeen qaarkoodna ayaga asaas u ahaa buugga ifiye waxaan ku soo koobay ilaa 101 qof oo kala duwan qaybaha kala duwan oo cilmiga ka hadlay cilmu dunya iyo cilmu aakhiraba imaamiyada kamid ah waxa kamid ah dadkii adduunkan ugu horeeyay oo sameeyay maxal la jiray muxuu ahaa iqtiraacyada ilaa hadda anaga baan garanayna maahanay marka hadda culimada hadda joogto culimada mucaasiriin waxay xiganayaan waxay leeyihiin qofkaas aan ka soo guurinay tusaale hadda Abbas ibn Firnas aviation ka asaa ugu horeeyay qof ugu horeeyay oo aviation ka dowlad sameey asugu ahaa buugku ku yaala dad noocaas oo kala oo aad u fara badan ayaa ku jira buugga marka intaas kaga gudbo waxaan u mahad celinayaa buuggan la'aantiisa oo aanan halkan maanta lagu soo bandhigi lahayn marka ugu horeyso waxaan u mahad celinayaa macallin Daawud Umar Ahmed Daawud Garaad oo Ingiriiska ku nool ustaadkaas aad u caawiyay intii buuggaas aan ku guda jirnay waan isla xiriirinay cilmi badan waa ka faa'iiday asigana waxa aad u caawiyay sidoo kale waxaan u mahad celinayaa ustaad Maxamed Cabduqaadir Istensa tafatiraha buugga oo hari haweenba u soo jeeday in buuggan sidoo ku soo bixi lahaa ka shaqeeyay sidoo kale madbacada hudhud ayadana buuggan kaalin weyn ka qaadatay sidoo u soo bixi lahaa dhammaan qof walba oo buuggan igala qayb qaatay in uu soo baxanay waan u mahadinayaa waxaan leeyahay aad u maasantihiin la'aantiin guushan lama gaarin idinkoo igala soo qayb galay xafladani waxaan idin leeyahay jazaakumullahu khairan aad u maasantihiin halkaas ku soo koobay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh